hadda ka hor waxaa dhacay magaalada Muqdisho dhalinyaro ayaa waxay doonayeen in aragti ganacsi oo magaalada ugu ku ah ay ku soo kordhiyaan dhalinyaradaasi fikradahoodii iyo aragtiyadoodii marka ay isku darsadeen waxay ku heshiiyeen in ganacsiga iyo fursadda ay doonayaan inay ka hirgeliyaan ereyada Taleex ee degmada Hodan waxa ay raadiyeen goob ganacsiga laga furi karo oo ku habboon kadib waxay la soo heshiiyeen mid ka mid ah dadka guryaha kirista ee kula guryaha ereyadii ay doonayeen ee Taleex inay arrinkaasi ka fuliyaan ereyadaas guri ku yaalo ay u arkeen in gurigaasi yahay guri ku habboon oo ay ganacsigooda ka fulin karayaan rag dhalinyaro ay ahaayeen way u yimaadeen mas'uulkii guriga lahaa waxaana u sheegeen inay doonayaan inay guriga ka ijaartaan mas'uulkii guriga lahaa wuxuu weydiiyey waxa ay doonayaan inay guriga ka hirgeliyaan iyagoo aan ka fiirsan waxay si dadban ula wadaageen ganacsigii ay doonayeen inay ereyadan ka hirgeliyaan ayna u rabaan gurigiisa inay ka ijaartaan oo ay ganacsiga ka furaan ayro gabin ninkii guriga lahaa fikraddii markuu dhageystay dib ayaan isugu laabanayaa waana soo tashanayaa ayuu yiri kadib isla maalin kadib ama 2 maalmood kadib fikraddii ayuu isla ninkii intuu isticmaalay asagii ayuunba ganacsigii ka furtay gurigiisii sidaasna waxaa meesha uga baxay aragtidii iyo fikirkii dhalinyaradaasi ay ku doonayeen inay iyaguna shaqo abuur ay ugu noqoto dadka iyo dalkan ay ugu soo kordhiyaan marka hadalka waxaan ka soo wataa fikir walba iyo qorshe walba aad leedahay dad kale lama wadaago dad waxaa jira aanan mudnayn in la wadaago oo doonitaankooduba yahay in ay